وتداوديال waxaa hadda soo galay hoggaanka siyaasadda mucaaradka الحين هوري درك الشيخ شريف الشيخ أحمد رئيس وزراء هوري حسن علي خيري حلو عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي رئيس وزراء هوري محمد حسين رولة حلو عبد القادر الصبلي حلو عن جماديد الكريم جوليد عبد الرحمن داري سنبل وشيء عبد الرحمن عينته حلو عن جيسو سيد عبد الربيب يوم الحكى لي أيها هالكان قصوكان وكان كسياسيين معارض كأبي شهوية على أردن كل وزح الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مدحوينه شريف أحمد وزارياشي هناك مدحنا كلاشي تاجن لحظة مدشعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كنتي وحركة مسؤولين مالتي أنا قبل ما شكل عليه. سأقولتي إن مالها لو حنفجر الشركة الأولى وعلى كل ميلي بالشركة الأولى كالأولى. هنا في شركة بضائع يعني مالها يعني ما توقع حركة مسؤولين. إلى أن كسر جلدنا والصحافة شد رأي كقبلنا كل مدة عن سواق المريض كالأولى بالشركة الصومالية هي عن كرفلة عن وقعد بين هالكان. وحمرك هراء وصحافة في نوع من دورات الجماعة عندنا كلنا وحن سؤاله فرن أسين دوران لحظة الشريف في حسن قيمة في مدحوين مشارع درام مشكور سنة مركا ساس رؤوس عضم تاوشاس مركا روحان كسور وينا درام ينتهي صور وقفله والمديرية كسر وحي شركة الولاية معنا كتب أدرع بزرو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصحافة annagoo ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo jeeda caasimadda muqdisho okay muti annagoo ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo jeeda caasimadda muqdisho waxaan maalmihii u dambeeyey wadatashiyo la yeelanay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka banaadir wadatashyadaas waxay diiradda saareen marxaladda halista ah iyo hubanti la-aanta siyaasadeed wadata taasoo si ulakac ah dalka loo geliyay waxaan si qoto dheer uga doodnay falalka sii kordhaya ee ay ka mid yihiin barakicinta danyarta boobka hantida qaran caburinta dhallinyarada musuqa iyo eexda nidaamsan iyo adeegsiga awoodda dowladda si ka baxsan waajibaadkeeda dastuuriga ah yoolkeedu wuxuu ahaa mid cad inaan la ogolaan habdhaqanka guracan ee xukunka waqtigiisu gabaabsiga yahay inuu naga burburiyo dowladnimadii sida dhib kale ee dadaalka fara badan leh lagu soo dhisay rubac qarni ka hor wadatashyadaas waxaan la yeelanay odayaasha dhaqanka culimada bulshada rayidka ah warbaahinta haweenka dhallinyarada iyo qaybo kale sidoo kale waxaan si gaara ula kulannay dadka danyarta ah ee sida arxandarrada ah loo dulmiyey iyagoo la jir diray laga barakiciyey guryahoodii hantidoodiina la burburiyey waxay nala wadaageen xanuunka niyadjabka iyo kalsooni darrada ay ka qaadeen taliska madaxweyne xasan sheekh iyo guud ahaan dowladnimada dalka
isku raacnay in la badbaadiyo dowladnimada lana diido wax kasta oo horseedi kara xasarad colaad iyo burbur. sidoo kale waxaan wada tashiyo la yeelanay wakiilada beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub, Turkiga iyo qaramada midoobay. kadib wada tashiyadaas waxaan maanta ummadda Soomaaliyeed u gudbinaynaa ama usoo gudbinaynaa qodobada soo socda. kow, muddaxileedka madaxweynaha iyo dastuurka dalka. muddaxileedka dastuuriga ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wuxuu ku egyahay 15 May 2026. wixii maalintaas ka dambeeya waxaan u aqoonsanaynaa madaxweynaha inuu yahay muwaadin caadi ah oo la mid ah shacabka intiisa kale. annagoo kaashanayna shacabka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada sharciga ah iyo xoogagga mucaaradka ah, waxaan hormuud u noqon doonaa iska caabin nabadeed, abaabul dadweyne, wada tashiyo qaran si dalka looga badbaadiyo firaaq dastuuri ah loona helo dowlad wadata sharciyad ay ku matali karto shacabkeeda. waxaan u aqoonsanahay dastuurka keliya ee sharciyadda leh inuu yahay midkii lagu heshiiyey sanadkii 2012 kaas oo lagu doortay laguna dhaariyey madaxweynaha iyo labada gole ee baarlamaanka iyo dhammaan hay-adaha kale ee dowladda. waxaa loogu yeeray wax ka beddelkii halka dhinac ahaa waa mid aan lahayn saldhig sharci maadaama uusan marin habraac sax ah, heshiis siyaasadeed, wada tashi qaran iyo xataa kooran buuxe. qodobka labaad, doorashooyinka federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada. waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo qabto doorashooyinka dowlad goboleedyada muddo dhaafka ah ee Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug si waafaqsan dastuuradooda, isla markaana in doorashooyinkaas ay noqdaan kuwo loo dhan yahay, la isku raacsan yahay, laguna kalsoon yahay. ma aqoonsanin waxa loogu yeeray doorashada magacaabista ah maadaama haatanba natiijada la sii ogyahay sida midda hadda ka socota Koonfur Galbeed, taas oo aan waxba ka duwanayn tii been abuurka ahayd ee Muqdisho ka dhacday December 2025. doorashooyinka heer federaal waa inay yeeshaan tilmaamaha soo socda. kow, waa in heshiis buuxa laga gaaro. labo, waa in hufnaan iyo kalsooni sare ay wataan. saddex, waqti iyo amni iyo awood farsamo oo waaqic ah ay wataan. afar, in dalka oo dhan ay hal mar ka wada qabsoomaan. shan, in goobaha codbixinta la ballaariyo. lix, inaysan jirin cid xakameyn karta rabitaanka codbixiyaha. waxaan si cad u sheegaynaa inaanan aqbali doonin doorasho dambiil dowlad goboleed ku jirta ama mid uu natiijadeeda uu ku jiro kombiyuutarka madaxweyne xasan sheekh uu ugu kaydsan yahay. waxaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagi doonaa muddo 7 gudihiis ah hannaan doorasho oo buuxiya shuruudaha iyo sifooyinkaas soo sheegay. qodobka saddexaad, dhulboobka, barakicinta iyo caburinta. waxaan si adag u cambaareynayna barakicinta arxan-darrada ah, burburinta guryaha, xaraashka hantida shacabka. waxaan ka tacsiyeynaynaa ehelada kuwii ku naf waayey. waxaan sidoo kale caafimaad uga baryaynaa kuwa ku dhaawacmay iyo inuu bedel khayr qabe ugu bedelo hantidooda la burburiyey. waxaan ognahay in dhulboobka iyo barakicinta si ula kac ah loola wajibaaray inta ka harsan muddaxileedka madaxweynaha iyadoo la doonaya in laga gaarsiiyo ka hor 15 May. waxaan caddaynaynaa in dhammaan dhulkii sida sharci darrada ah loo bixiyey in la soo celin doono. waxaa la dhisi doonaa gardoon dadweyne oo xaq ah iyo malaalinta soo celiya sida uu dhigayo qodobka 111 xarafka ja ee dastuurka dalka, iyo in la dhisi doono maxkamad gaar ah oo qaata dambiyada la xiriira boobka hantida qaranka. waxaan si adag u cambaareynayna xarigga iyo caburinta dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan xarigga sharci darrada ah ee loo geystay Sacdiyo Macalin Cali Sacdiyo Bajaaj, Najiib Cali Cosoble iyo Sharmacadka Maxamed Axmed. waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah xorriyaddooda lagu soo celiyo. qodobka afraad, siyaasadeynta hay-adaha amniga. waxaan ka digaynaa in hay-adaha amniga loo adeegsado dana siyaasadeed. ciidanka qaranku waa hay-ad qaran ee ma ahan aalad siyaasadeed. waxaan si cad ugu baaqaynaa kow, in la joojiyo kala qaybinta ciidanka, in la dhowro dastuurka iyo waajibaadka qaranka, in ciidanka laga dhex saaro siyaasadda, in la joojiyo abaabulka ciidan ee ka dhanka ah lagu doonayo in lagu caburiyo mucaaradka iyo shacabka dowladda. waxaan xusuusinaynaa ciidamada qalabka sida waxaa ku dhaarateen ilaalinta shacabka, dastuurka dalka iyo madaxbannaanida qaranka ee uma aadan dhaaran ilaalinta talis iyo dana shakhsiyadeed. waxaan ballan qaadaynaa in saraakiisha ku milma siyaasadda lana jirsada sharci darrada in lala xisaabtami doono,
kuwa iska diida amarada guracan ee sharci darrada ahna la abaalmarin doono. gunaanad waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay ilaashadaan nabadda iyo xasiloonida, isla markaana ay si midaysan uga hortagaan dulmiga, sharci darrada iyo ku tumashada xuquuqda muwaadinka, kuwaas oo ah isha nabadgelya darrada iyo xasilooni la'aanta. dhankeeda waxaan ballan qaadaynaa ilaalinta nabadgelyada caasimadda, ka hortagga dulmiga, difaaca dastuurka iyo dowladnimada. dulmiguna ma waari doono, dowladnimaduna ma burburi doonto, shacabka Soomaaliyeedna mar kale ay guulaysan doonaan insha Allah tacaala. waa mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعسية صاحبتي الوزير عبد الرحمن حيدر runtii keliya waxaan filayaa sababta oo faa'iido hada waxaan rabnaa maalintii ugu dambeysay iskuulka bulshada aan la socota wixii ka dhacay in dadkii la barakiciyey la qaxiyey saraakiishii ciidanka booliska Soomaaliyeed ilmahoodii saraakiil xigeenadii iyo askartii maanta ninka uu tuuri waayey oo ay sabool ah oo ubadkeeda waxaa dhashay maalin waxbarasho maalin sugaysa hooyo awoodnimo ku kalsoon meheeda hooyo coosh baca iyo maraduug ka samaysan kuwaasoo oo dhaxanta roobka iyo dabaysha ay ku dhacayaan ninkii saqda ee carabka iyo hooyadaas cooshkeedii lo nabadgeli weysay ilmihii xabadka ka qaaday maanta la isan jirin meel ay dhaysato maxay dowladnimo Soomaaliya ka fadhisaa ninka xarumihii dowladda wasaarado wakaalado isbitaallo jaamacado laamihii maamulka degmooyinka wadamiskii macalyadii hooyadii dhallaanka xarumihii hooyadii dhallaanka suuqyadii ganacsiga laga bilaabo banaanka carab ilaa bakaaraha xarumihii safaaradaha iyo xerihii ciidanka haraashay ninkaas maxaa ka reebaya inuu mustaqbalkeena iibiyo su-aasha aan isweydiinay innaga iyo dadkii aan la kulano nin kale dastuur ma jira oo ima qabanaya dastuurkiisii isaga uu samaysta xataa aanan uusan qabanaynin ninka yidhi go-aan maxkamadeed ma tixgelinayo ninka diiday sharciga u hoggaansamo ninka xataa diiday in xataa maxkamadihii isaga uu magacaawday go-aanada ay ka soo saaraan arrimaha dhulka diiday dukumenti kasta oo dowladihii isaga ka horreeyay ay leeyihiin oo yidhi aniga doorashada aan soo saara keliya ayaa sharci ah aniga go-aanka aan gaara keliya ayaa sharci ah waa ninkaas ninka 15 May ka dhamaanayso maangeedka wadaadka hore inuu sii joogo markuu madaxda noqdaan uu xaraasha hantida qaranka maxaa dhacaya waxaa dhacaya xafiisyada dowladana waxay isku bedelayaan xarumo ganacsi waa sida hadda dhacday waxaan ognahay dad Soomaaliyeed oo meydkooda ku dhintay badaha oo la keenaya safaaradihii si xataa waalidiintooda ay joogtaan oo ay lacag ka raadinayaan safaaradaha qaarkood waxaan ognahay in safaaradihii dalka qaarkood la xaraashay waxaan ognahay in xafiis kasta amaanta hoosa waxaa laga fududeynaya ay tahay balaaluusha ama garab carabtu waxay tiraahdaa annaasu calaa diini mulukihi madaxweynihii maadaama isaga madaxtooyadii uu ka dhigay xarun nootaayo ah oo dhulka lagu kala galo xafiis kasta waxay noqotay meel marka lagu xaraasho haddii marka aysan maalmahan waxaana loo sheegaa in la yidhaahdo amnigaa jira amnigaa idin keenay laakiin amnigaas aan idin keenay waan ku dhacaynaa waan ku barakicinaynaa waan ku baadaynaa waan ku xukumaynaa kalidaro su-aasha waxay tahay haddii aysan cadaalad jirin haddii aan sharciga loo siinayn haddii garsoorka uu shaqeynayay oo aan inaad lacag kusoo furata ama aad garabka kusoo hesho maahayn sidee kusii jiri kartaa see amniga kusii jiri karaa haddooba jiraba haddii fursaddii shaqo maxkamada daata